dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa maanta ka hadlay wareejinta haamaha shidaalka ee magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ee lagu wareejiyay shakhsiyaadka gaarka iyagoo dadweynuhu ugu baaqay xukuumadda inay ka taxadirto khataraha ka iman kara haamaha shidaalka oo keeni kara isku dhacyo iyo weliba dawladnimada oo burburta sidoo kale waxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ugu baaqeen in haamaha shidaalka ee magaalada Berbera ay yihiin hanti guud ay wada leeyihiin guud ahaanba dadweynaha ku dhaqan Soomaaliland haddaba iyagoo ka hadlaya dadweynahaasi waxay yiraahdeen magacaygu yahay Jamaal Cabdulle Ismaaciil ahna xogayaa garabka dhalinyarada xisbiga wicid ee gobolka Togdheer waxaan u mahad celinayaa marka ugu horreysay intaanan mawduucan ama barnaamijkan aan wado aanan bilaabin kooxda Som News iyo waliba kooxda kale iyaduna Kalson TV haddaan u dadego mawduuc ama su'aasha ay weydiiyeen sidoo aragtaa Berbera waxaan u arkaa kulay anigu inay tahay cadaalad darrada marka horena xukuumadda madaxweyne Silaanyo lagu tirniyay lahaa loogu abtirniyay lahaa wax weeye cadaalad darrada ay ka mid tahay marka runtii saaka waxa website-yada iyo telefishinada iyo TV-yada iyo warbaahinta Soomaaliland ee maxalliga ee madaxa banaanba ku jirta muwaadiniinta reer Soomaaliland oo la yiraahdo magaciisa Morgan kana socda aqalka madaxtooyada taana waxaan leenahay runtii haddaan nahay gobolka Togdheer iyo xisbiyaanba waan ka soo horjeednaa xukuumadda madaxweyne Silaanyo waxay jilbaha la dhigatay cadaalad darrada ay ku hayso dadka iyo waliba meelaha hantida dadweynuhu ay isugu yimaadaan ay loogu waxaynayo marka waxaan leenahay xukuumadda madaxweyne Silaanyo ha ka noqoto ha kana tanaasusho arrinkaas maadaama ay ka dhalan karto fowdo iyo waliba isqabsi maanta ummadda reer Soomaaliland uma baahna in arrimahaas oo kale halkan maanta la keeno maanta ummadda jaamacadin waxaan haddaan halkan dareenkayga ku cabiro haamaha la wareejiyay haamuku maaha in la wareejiyaa dalkii oo dhan baa wareegay waad ogtihiin in la saxeexay in Soomaaliya ay dawladdeenu ay la midoobo oo wixii dhiigga loo soo daadiyey ay dawladdeennii ku dhiirito inay dib ugu noqoto marka wax lala yaabo maaha in maanta deked la wareejiyaa hore waxaa u wareegay macsharadii waxaa u wareegay dhulal badan oo dawladdu lahayd oo hantida caamka ahayd waxaa caamka loo dhan loo wareejiyay dana khaasa marka waxaan leeyahay madaxweynuhu markii hore ee uu tartamayay waxay uu ku tartamayay waxa ka mid ah riyaalo ku dhaliilayay waxa la luusaday hantidii dadweynaha maantana waxa uu ka yahay dadka intii hantidii dawladda madaxtooyada dib u iibin doona madaxweynuhu marka waxaan leeyahay war hantida dadweynaha hal la dhowro aakhirina waa la isweydiinayaa madaxweynaha waxaa leeyahay wax wanaagsan dalka kaga tag midnimada dadka ka shaqee dhulka dadka caamka ah khaaska ka hormarin ee caamka hormarin rayida marka hore waxaan leeyahay haamaha shidaalku waxa weeyaan waa haamihii qaranka Soomaaliya oo dhan baa wada leh qofku in lagu wareejiyo shacaba ma qorayo dastuurka iyo maxaan raacay xeerarka u yaala qaranka Soomaaliya marka waxaan leeyahay oo faraya madaxweynaha Soomaaliland hablaha waxa la jeeday dhibaato haamaha keedka shidaalka ma galaan dhibaato qaranka wada leh shacabweynaha Soomaaliland baa wada leh waxaan leeyahay habluhu dhibaato ay lahaan jireen bix laakiin haamuhu ma galaan dhibaato uu yahay Jaamac Axmed Maxamed kuna hadlaya afka ganacsatada yaryar ee gobolka Togdheer waxaan ka leeyahay haddii arrayga ka dhiibto wareejinta haamaha shidaalka ee magaalada Berbera waxaan aad iyo aad uga soo horjeedaa in la wareejiyo haamaha shidaalka ee magaalada Berbera waxaan leeyahay madaxweyne aad baad uga soo horjeeday berigii hore aad mucaaradka ahayd in wax la wareejiyo xoolaha dawladda laakiin imaka adigii baaba wareejinaya marka waa inaad ka daysaa wareejinta oo aad shacabkooda u daysaa waa Maxamed Cali Axmed Kaabe wararka telefishinka caalamiga Somali News magaalada Burco.